ninka ma u bannaan tahay inuu xaaskiisa naasaheeda nuugo ama carabkiisa xubinka taranka xaaskiisa uu geliyo sidoo kale haweeneyda inay xubinka taranka ee zawjkeeda ay mudmuudsato arrimahaas sheekhan oo warramo jazakumullahu khayran waxaa laga yaabaa su-aasha inaad ka yaqiiqsateen inaad ka yaqiiqsanaysaan oo la yaabantihiin baa laga yaabaa bal qaar idin ka mid waxaa laga yaabaa inaad leedihiin war waxaa masaajidka loo keenayaa waxaas maxaa sheekha loo weydiin laakiin in badan oo mujtamaceenna ka mid a baa masaa'ishan sameeya oo ay haysataa khaasatan dadka xoogaa iskuullada dhigtay ee yaro ilbaxay ilbaxnimada iyo tiknolojiyada iyo waxaan adduunyadan la dhex galay tiknolojiyadu ma keenin laakiin dhexgalkan adduunyada la dhex galay baa waxaa soo kordhay dhaqamo fara badan oo laga keenay wadamo kale soo jawaabteedu waxa waaye maxallul qadar meeshu waa meel wasakh waa meeshii nijaasaadku ka soo baxayeen waa meel inta badan jeermis leh afka oo madkhalkii jidhka intiisa kaliya calooshii iyo wax uga galayeena in lala aado maya masaladaasi marka masale sharcan bannaan ma aha waana nooc edab darro iyo akhlaaq xumo ah waa nooc mucaasharo khaldan oo shareecada khilaafsan ah looguma talagelin allana tabaaraka wa tacaala xubnaha ayagu isugu talagalay afka xubnihii meesha loogu talagalay maaha